السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتمين. ما أنت ومركي لبعض وهذا أي نكوكل النوان السبتي وولي بقى أحد السوق اللي يسوه طبعا كبيش الجنوري كوبات سنة كلا بعض وكون هي اللحية لبعض تنك. مقال كانوا حرباينا نذكره واقع حلبان إلهان عمر يلا بحلبان أو كلا أو قبل كم من السوق تلا جسوا دورته أيام ما أنت وحى يتجن حرونتا آيس أي كل هذا هاي مال كمده من السوق waxana ay doonayeen inay galaan oo ay arkaan dadka goobtaasi lagu hayo sida noloshoodu ay tahay markii hore waa loo ogolaaday markii ay gudaha galeen waxa loo diiday in qaybo kale ay si arkaan waxana la yiri invitationkiina ama codsigiini waa la laabtay isaga baxa xaruntan markii ay ka soo baxeen kadib ayay saddexda xildhibaan shir jaraa'id qabteen maxay halkaasi ka sheegeen waan idin la wadaagaya markii sidoo kale ay ka soo tageen xaruntii loo diiday ee ICE dadka ay soo qabtaan ay ku hayeen mudaharaadkii looga soo horjeeday ciidamada ICE cadaaladna loogu raadinayay gabadhii cadaanka ahayd ee askarigii ICE ka tirsanaa arbacadii uu dilay ayay ka qayb galeen halkaasina Ilhaan Cumar ayaa hadal ka jeedisay sidoo kalena waan idin la wadaagaya balse marka hore soo dhawaada haddii aan ku bilaabo xildhibaanada Congress-ka Mareykanka waxaan ognahay maalmaha Sabtida iyo Axadda waxa ay dib ugu laabtaan deegaanada laga soo doortay gaar ahaan gobolada laga soo doortay ay tagaan Minnesota waxaan ognahay waxyaabaha ka taagan ICE oo hadda waliba 1000 askari oo dheeraad ah 2000 oo horay u keeneen ku soo daray 1000 dheeriya 3000 oo ciidamada ICE ay hadda ka soo dhigeen dilkii gabadhii iyo mudaharaadyadii ka dhashay ayaa ka socda marka saddex xildhibaan oo dumar ah dhamaantood oo dimuqraadi ah oo laga soo doorto gobolka Minnesota ayaa maanta waxa ay rabeen inay tagaan xarunta ay ICE dadka ay ku hayaan marka ay soo qabtaan inta aan loo kala qaadin xabsiyo kala duwan oo Mareykanka ciidamada ICE ay ku leeyihiin marka xildhibaanadu waxay kala ahayn Ilhaan Cumar oo degmada shanaad laga soo doorto sidoo kale Kelly Morrison oo degmada saddexaad laga soo doorto iyo Angie Craig oo degmada labaad laga soo doorto marka saddexdaasi xildhibaan waxa ay doonayeen inay booqdaan xarunta Whibley Center ku taala oo ICE dadka marka ay soo qabtaan ay geeyaan ka hor inta xabsiyada Mareykanka aan loo kala qaadin Ilhaan Cumar waxa ay tiri oo markii loo diiday kadib banaanka shir jaraa'id ku qabatay in markii hore loo ogolaado oo invitation ay haysteen in ay tagi karaan oo ay soo kormeeri karaan laakiin waxa ay tiri markii aan galnay oo qaybtii hore waa naloo ogolaaday markaas kadib waxa aan la kulanay mas'uuliin qof ayaa noo ogolaaday waajibka xildhibaanada ka saaran inay soo kormeeraan goobaha sida ciidamada ICE meelaha ay dadka ku hayaan oo kale markaas kadib waxay tiri wax yar kadib waxa noo yimid laba qof oo dhahaya amar ayaa na soo gaaray nagu amrayo inaanan idin ogolaanin in aad gudaha u sii gashaan xaruntan marka waxay tiri muddadii koobneed oo meesha aan joognay waxa noo suura gashay in aan aragno ilaa iyo 20 qof oo goobta lagu hayay waxaana naloo sheegay sidoo kale ay tiri inay jiraan laba diyaaradood oo dad ka qaadaya xaruntaasi isla markaana waxaan weydiinay dadkan ma la masaafurinaya maya ayna yiraahdeen oo gudaha Mareykanka xabsiyo kale ayaa la geynaya waxa sidoo kale naloo sheegay ay tiri markii 20kaasi qof aan aragnay xaaladda in meesha ay leedahay meelo lagu qubaysto oo shaawarisa walow aan nala tusin waxa sidoo kale naloo xaqiijiyay tiri in waxyaabaha nadaafada dadka loogu talagalay sida shaambada saabuun waxyaabo ay ku qubaystaan in ay leeyihiin waxana naloo sheegay inaan bal la isticmaalin maadaama muddada dadka meeshan lagu sii haynaya ay yartahay laakiin waxay tiri horay ayaan ula kulanay dad meeshaasi lagu soo xiray oo iyagu nooga warbixiyay xaalka meeshu sida ay tahay marka waxay tiri waxa maanta dhacay waxay tahay in si cad la isugu dayay in laga hor yimaado xubno ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo shaqadoodii la xisaabtanka wada iyo waajibaadkoodii dastuuriga ahaa marka waxay tiri marka lacag Congress-ka oo u qoondeynayo hay'ad ka tirsan hay'adaha Mareykanka in xubnaha Congress-ka laga rajaynayo in shacabku ay ka rajaynayaan la xisaabtan maxaa yeelay shacabku waxa ay naga doonayaan lacagihii aan ansaxinay in si hufnaana iyo la xisaabtana aan u dabagalno taasina waxay tiri waa waxa maanta dhacay oo ciidamada ICE ay go'aansadeen inaysan noo ogolaanin waajibaadkeena dastuuriga ah inaan gudano haddaba waatan Ilhaan Cumar oo ka hadlaysay markii loo diiday xaruntaasi ICE inay galaan oo banaanka ay u soo baxeen shirkii jaraa'id oo ay qabatay made an attempt to enter Whibley Center here in Minneapolis. We were initially invited in
to do our congressional oversight and to exercise our Article 1 duties. When we made it in, it was with the authorization of someone who's been here for a really long time, who understood that we had a congressional duty to enter the building and to see the facility. Shortly after we were let in, two officials came in and said that they received a message that we were no longer allowed to be in the building and that they were rescinding our invitation to come in and declining any further access to the building. When we initially entered, I'll briefly describe what we saw. We were taken in to the monitoring center. We were able to see where people were brought in. We were informed that there are two planes that are taking off today, taking detainees out of this center into other detention centers outside, within the United States. We did ask if those were deportation flights. We were told no. When we entered the detention center, we were able to observe about 20 people that were being detained there briefly. We also were told that there were showers we weren't able to see. We asked if there were hygiene products provided. They told us people are not held long enough to need those, which is insane because we've heard from people who have been detained here before. But I will end with this. What happened today is a blatant attempt to obstruct members of Congress from doing their oversight duties. When we appropriate funds as members of Congress, we are expected by the public to do oversight because the public requires their money be used with transparency and accountability. And what happened today is ICE agents deciding that we were no longer allowed to fulfill our constitutional duties. dhinaca kale xildhibaanad Ilhaan Cumar markii xarunta ICE loo diiday oo isaga soo tageen kadib ayaa dadka mudaharaadka sameynayay oo ka soo horjeeday joogitaanka ciidamada ICE magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul kana cadaalad u raadinaya gabadhii cadaanka ee arbacadii askarigii ICE ka tirsanaa oo dilay Renee Nicole Good waxa ay kala qayb gashay mudaharaadkooda halkaasina marka hadal ayay ka jeedisay xildhibaan Ilhaan Cumar waxa ay tiri waan xanaaqsanahay sida adinku aad u xanaaqsan tihiin oo kale waxaana soo booqda ayay tiri qalalaaso Washington laga soo abaabulay isla markaana waxay xaqiijisay hadda inay haystaan oo ay qalqal gelinayaan xaafadaheena waxa ay tiri okay ma ahan tanina ma ahan Ameerikada aan doonayna inaan ku noolaano mana ahan sidoo kale Ameerikada aan la rabno nolosheena amaba sidoo kalena deegaanadeena waxay tiri qalalaasahan la soo abaabulay ee maalinta cad lagu dilay qof inaga naga mid ah dhammaantiinba waxa aad diideen inaad cabsataan waxaad sidoo kale dhammaantiin aad diideen in arrintan aad gadaal uga istaagtaan isla markaana aad ka aamustaan waxaadna go'aansateen inaad arrintan ka dhiidhisaan sidoo kalena agajuglaynta waa diideen ayay tiri waxa ay sidoo kale tiri Ilhaan Cumar waxaan tusaynaa wadanka oo idil waxyaabahan aqalka cad daalimku uu ka soo abaabulay oo Trump ay ula jeedo sida iyadoo ay hadalka u dhigayso in aanan u dul qaadan doonin waxa ay tiri halkan waa joogeynaa kanina waa wadankeena waana ku sii noolaan doonaa isla markaana sidoo kalena waan garab istaagi doonaa dadka degan xaafadaha kala duwan ee Minneapolis waxa ay tiri sida dhamaantiidba ogtihiin waxay halkan u yimaadeen in ay qalqal geliyaan afduubtaan isla markaana ay masaafuriyaan soo galootiga Soomaalida ah ee ku nool Minnesota markii ay heli waayeen qof ay qabtaan maxaa yeelay dhamaanteen inteena badan waxaan nahay tiri dad legal residents oo green card haysto ama muwaadiniin ah waxay go'aansadeen inay qalqal geliyaan dadka soo galootiga ee Latinoga waxay sidoo kale ay go'aansadeen ayay tiri inay istaajiyaan qof kasta oo aan cadaan ahayn maxaa yeelay waxa ay og yihiin qofkaasi ay leeyihiin iska dhaadhicinayaan inuu yahay qof dambiile ah ama qof aan sharci lahayn marka waxa ay tiri waan ka jawaabnay si geesinimo leh ayaan arrintaasi uga jawaabnay dadkeena nala degan waxaan sidoo kale ay yiraahdeen inta aan anigu joogo arrintaasi
ma dhacayso dadku waa ay ka dhiidhiyeen waxaana sidoo kale ay sheegtay markii ay maskaxdoodu ay ka heli waayeen waxyaabihii ay doonayeen waxay go'aansadeen cagajuglayn waxay tiri maalin kasta waxaan arkaa dadka degan Minneapolis oo daba socda ciidamada ICE isla markaana diidan cagajuglayntooda iyo in ay ku gabanayaan sharciga iyo kala dambeynta ayaan soo celinaynaa amaba aan sugaynaa Ilhaan Cumar sidoo kale waxa ay tiri waxaan arkaa dadka degan Minneapolis iyo St. Paul oo iyagu dhahaya haddii aad xiraysaan iyo haddii kaleba ciidamada ICE waxaan rabaa oo aan diiwaan gelinayaa waxyaabaha sharci darada ah oo aad samaynaysaan maxaa yeelay isla xisaabtan haddii uusan maanta jirin bari ayaa isla xisaabtan uu jiri doona hadalladaasi waxa ay kamid ahaayeen hadaladii Ilhaan Cumar ay dadka mudaharaadka sameynayay ay u jeedisay iyadoo waliba taagneyd isla markaana dadku ay aad ugu sacbinayeen waxayna sidoo kale ku bilowday hadalkeeda gabadhii dhimatay magaceeda ku dhawaaqa say her name ayuu ku bilowday dadkuna kadib magacii gabadhii ay sheegayeen haddaba waa tan Ilhaan Cumar hadalkii dadka mudaharaadka sameynayay ay u jeedisay Minneapolis, I am incredibly angry as you all are. We have been visited by state-sanctioned violence that is currently occupying, terrorizing our neighborhoods. This is not okay. This is not the America we want to live in. And this is not the life we want for ourselves and for our neighbors. But in this state-sanctioned violence where they murdered a neighbor of ours in broad daylight, you all have refused to be afraid. You all have refused to back down. You all have decided that this resistance is not one that can be intimidated. We are showing the nation that regardless of what the tyrant in the White House believes, we know that we are here to stay and this is our country. We are going to make a life here and we are going to stand up for our neighbors here in Minneapolis. As many of you know, they came to terrorize, abduct, and deport Somali immigrants here in Minnesota. When they couldn't find any because majority of us are legal residents and citizens, they decided to terrorize our Latino immigrants. They decided to pull up anybody that did not look white because they thought they could be a criminal or they could be undocumented. And we have responded with bravery. We have responded with bravery. We have responded with our neighbors showing up and saying, not on my watch. As they lose their minds trying to intimidate us. I see every single day neighbors twirling these violent people who are trying to intimidate us under the guise of law enforcement and saying no matter what you do to me, you can arrest me or not. I am going to document your illegal actions. Because if there is no accountability today, there will be accountability tomorrow. هذه هذا ما سنتين أصحابتي إنتر مركل كل مدونه وصاحبكن علم وارو إذن للسدائية نبت قليل